miisaan kordhinta marka noqoto hanaanka loo kordhiyo miisaanka waa siyaabo kala duwan balse shan qodob ayaa la tilmaamaa inay yihiin kuwa ugu muhiimsan. in qofku ku daro hanaanka cuntadiisa kaalori dheeraad ah. kaaloriga dheeraadka ah wuxuu qofka ka saacidaya ama uu ka caawinaya in miisaankiisa markaa uu kordhiyo. laba in qofku markuu soo iibsanayo waxyaabaha loo yaqaan snack ama nasoocaha oo kale inuu qofku soo iibsado waxyaabaha markaa dhexdu ay ku badan tahay. tanna waa siyaabo kale oo markaa sare lagu qaadi karo miisaanka qofka. saddex in qofku cabo caanaha iyo sidoo kale cabitaanada kale ee markaa leh kaaloriga aad u sareeya si markaa sare lagu qaado ama loo kordhiyo miisaanka qofka. afar in qofku isticmaalo borotiinada kuwaas oo qofka ka caawinaya in miisaankiisa sare loo qaado. shan oo ah qodobka ugu dambeeya in qofku cuno midhaha iyo sidoo kale khudradaha kala duwan. tanna waa hab kale oo markaa miisaanka qofka sare lagu qaadi karo. shanta hab ee aanu sheegnay ayaa kuwa badan ee inta badan la tilmaamo in sare lagu qaadi karo miisaanka qofka. tani kula dambe waa ku mahadsantahay dhegeysigiina. nabadgelyo.